بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaan odayaasha dhaqanka beesha biimaal saxaafadda kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadli rabaa dhibaato oo aniga igu dhacday oo sharci darri igu dhacday waxaan rabaa faahfaahinteeda inaan sheego sidii dadka ahalka ah iyo dadkii Soomaaliyeed oo isoo gurmada ay u ogaadaan anigu waxaa liigu xiray waxaana liigu xiray sifir sharci darre ah oo aan waafaqsanin qaanuunka dadka dalka u degan aniga waxaan ahay nin muwaadin ah oday ah la yaqaano xil dowladeed soo qabtay xildhibaan soo noqday wasiir soo noqday xasaanad leh waxaa liigu sameeyey si argagixiso ah oo nidaamka dowliga aan waafaqsaneen gurigayga lagu weeraray waxaana sameeyey sababtaas oo lacag ku bixiyey nin xildhibaan ah oo la yiraahdo Xuseen Cali Xaaji iyo walaalkiisa oo la yiraahdo Ibraahim Cali Xaaji markii dhibaatadaasna ayaga ii geystay waxayna ku adeegteen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliyeed dowladda waxaan u sheegayaa saraakiisheeda oo xilku u dhiibayso waa inay dowladda koontaroosha ogaataa ninka muwaadinimadiisa sababtoo nin la siiyay $100 hebel gurigiisa iyo weerar haddii qofka la yiraahdo uu qofka yeelay ninkaas mas'uuliyad ma qaadi karo aniga saraakiil ayaa laaluush la siiyey oo gurigayga soo weerartay tiknikii dowladda lagu soo weeraray anigoo saldhiga as ii jiro 100 mitir oo leegi yeegi kara maxkamadda oo leegi yeeri kara nabad sugidda anigoo xur ahoo wixii raba sheegi karo dambi haddii galan ligu qaadi kara aan tegi kara halaas ligu sameeyey markaan cabasho sameeyey oo ka soo baxay xabsiga oon idaacadaha u yeereen haddana idaacadihi lacag la siiyay haddana waxaa la yiri warka ninkan uu sheegay ha sheegina waxaan mar labaad iyo mar saddexaad dowladda ka codsanayaa horta inaan cadaalad helo maadaama aan ahay muwaadin dalkiisa jooga xuquuq leh waxaan kala rabaa saraakiishii oo aniga gurigayga weerartay oo amarkaas bixisane inay dowladda la xisaabtanto sababtoo dowladda maxay mas'uul ka tahay dowladda anay mas'uul ka tahay muwaadinka Soomaal waxaa maalintaas waxaa argax la geliyay 1000 qofood wax u dhawaa argagax la geliyay xaafadana la xiray dadkii xirmada laga qaaday dadka darbi wax loo ilmihii maalintaas iskuul ma aadin waxbarasho ma aadin dugsi quraana ma aadin ilmahaas wax loo geystay iyo aniga oo muwaadin oo gurigayga la weeraray waxa ka mas'uul dowladda marka waxaan rabaa inay dadkii saas sameeyayna la xisaabtanto nimankii laaluushka bixiyayna la xisaabtanto xildhibaan Xuseen iyo walaalkiis inay la xisaabtantaan rabaa tilaabana ka qaado sababtoo ninka muwaadin inuu xuquuqdiisa helaan rabo haddii dulmi lagu xiray dadkii xiri waa inay eegin la xiraa haddii kale cadaalad ma jirto dalka dhan waxa ka jira markaas fowdo ani qorigayga aan qaadana dadku waa iska celinay markaas dowladda ay fasaxdo dowladda inay tiraahdo muwaadinka Soomaaliyeed nabadgelyadiisa xuquuq caafimaadkiisa waxbarashadiisa anaga ka mas'uul dadkina dulmi lagu weeraro cadaalad darra ma aha waxaan ka cabanayaa oo mar labaad aan ka cabanayaa haddaan cabasho sameeyay haddana cabashadeedii lacag lagu bixiyay inay dadka ogaanay intaas horta waxaan u sheegaa dowladda waxa kale oo mahad celinaya dadkii Soomaaliyeed oo dhammaan ii gurmaday oo Soomaali ka kooban oo yiri waxa nabadoonka waxa lagu qabsaday xaq darro waa mahad celinaya 100% aan mahad celinaya waxa kale oo mahad celinaya ciidankii nabad sugidda oo leegeeyay oo si wanaagsan oo ixtiraam leh oo odatanimo leh ila dhaqmay sababtoo malina dhaqman nin maxbuus oo kale waxa leegeeyay guri joodara leysiyay sariira leysixiyay musqula guri dhaxisi u tiilay cunta leesinay ayagan waa mahad celinaya sababtoo qofka man ahsana ilaykum ma'rufan fakafiyuhu niki wanaag ku sameeyo wanaaga loogu abaalgudaa niki xumaan ku sameeyeen wajh ilayhi wa'sir wajazaa'u sayyi'atun mithluha dadkii xumaantii ugu sameeyeen waxaan ka codsanayaa in xumaantooda lagu qaado
dadkii wanaagii igu sameeyo wanaagii igala isticmaalan wanaagooda in lagu abaalmariyo aad iyo aad u mahadsantihiin dowladda waxaan ka rabaa qabashadayda sarkaalaa soo amray aniga hebel ma dhihi karo laakiin sarkaalka goordan jooga amar soo bixiyey gurigaysaasa lagu helay waxaan ka codsanay sarkaalka jooga goordan inay dowladda la xisaabtanto sababtii aniga gurigayga loo weerarin in uu sheego amarka ninkii bixiyeen wixiis ahayn inuu sheegaan rabaa marka wax aad iyo aad u mahadsantihiin warka hataa ma toosi karo sababtoo ah dulmiga lagu sameeya maskaxdayda ka guuxay aad iyo aad u mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.